Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ugu horreyn soo dhawaada asxaabta qaaliga. Halkani waa channelkeenu Infinite Technology oo aad uga barteen casharaanta technology-ga iyo hadda wixii faa'iido leh. Maanta waxaynu ka hadli doonaa cashar cusub oo ku saabsan Keep ama Note-ka loo yaqaano Keep. Keep waa mid ka mid ah apps-ka ugu muhiimsan ee Google, taas oo aad ku xisaabin karto taas oo aad ku note garaysan karto ama ku organize garayn karto waxyaalaha balaniskaaga ah ama qorshayaashaada ah ama waxyaalaha hadba kuu muhiima aad ku xusan kartid ama aad ku qoran kartid sida xasuus qorkaaga iyo wixii la mid ah. Ugu horreyn waxaa kuu soo bixi doonta markaad Google Keep aad soo guda gashid waraaqda noocan ayaa kuu soo bixi doonta ama safxadda noocana. Waxay ka kooban tahay qaybo fara badan ayay ka kooban tahay. Marka waxaynu ugu horreyn isla arki doonaa sida loo sameeyo note cusub. Note cusub markaad sameynaysid waxaad ka sameyn doontaa halkaas ay ku qoran tahay take note. Kadib waxaad u bixin doontaa waxa la dhaho title ayaa note-kaaga aad u bixin doontaa. Sidoo kale waxaanad qaybta hoose aad kaga dari kartaa note-kaaga iyo wuxuu ku koobnaa. Tusaale ahaan waxaan ku darsaday ama title ayaan u bixiyay. Qaybtan kalena waxaan ku qori doonaa note-kayga iyo waxa uu ku saabsan yahay ayaan ka buuxin doonaa. Intaanad note-ka aanad ka guda bixin ama ka bixin waxaad isla arki doonaa qaybahan kala duwan. Qaybahani waxay kuu qaban doontaa qaybtan ugu horeysa inay ku xasuusiso note-kaaga ama aad waqti ku xidhatid taas oo notification kuu soo dhacayo ama waqtigii markii la gaaro oo kugu dhacayo waxaas ayaad qabanaysay. Ugu horreyn haddaynu reminder aynu ku dhufano reminder way xasuusi weeyaan waxaa kuu soo bixi doontaa waqtiyadii uu ku xasuusin lahaa ayaa kuu soo bixi doontaa. Tusaale ahaan ma biriyo kale ayaan ku xasuusiyaa ayuu leeyahay ama next week. Sidoo kale waxaad samayn kartaa inaad halkaas hoose aad ku dhufatid oo aad u cayintid bishii iyo maalinkii iyo weliba waxaad gelin doontaa taariikhdii lagu xasuusin lahaa. Tusaale ahaan waqtigii ayaan gelinayaa ama sidoo kale waxaan gelinayaa saacadii. Sidoo kale waxaan leeyahay daily maalinkiiba hal mar xasuusi ama weekiiba hal mar xasuusi weeyaan. Sidoo kale bishiiba hal mar xasuusi ayaa dhihi kartaa. Waxaad kaloo dhihi kartaa sanadkiiba hal mar xasuusi. Marka waxyaalahaas oo dhan ayaad ku qori kartaa. Marka ugu horreyn maalinkiiba hal mar xasuus haddaynu niraahno sidaas ayaynu ku save garayn doonaa. Waxyaalaha kale ee aynu ku arki doono note-keena intayna ka guda bixin waxaa ka mid ah collaboration oo ah inaad cid kale aad ku soo dirtid ama kula maamusha note-kaaga waxaa balaniskan kula qorsheysa ayaad halkan gmail-kooda aad gelin doontaa oo aad ku soo dari kartaa. Sidoo kale notice-kaaga theme-kiisa waad bedeli kartaa oo waxaad samayn kartaa inaad color-ka aad ka bedeshid hadba noocii kuu qurux badan aad saaratid ama aad ku furtid color iyo wixii la mid ah. Marka waa theme-ka ayaad bedelaysaa. Qaybta kale ee theme-ka ku sii xiga waxa weeyaan inaad sawir aad ku soo darsatid waxa la dhaho note-kaaga ama one picture aad u baahatid iyo wixii la mid ah halkan ayaad kaga soo darsan kartaa. Qaybta kale ee ku sii xigta waxa weeyaan archive oo ah inaad qarisid note-kaaga aad qarsatid ama aanu halkan ka soo muuqan. Waynu isla arki doonaa qaybahaas ayaynu ku arki doonaa. Haddii aynu saddexdan dhibcood aynu ku dhufano waxaynu arki karnaa note-ka sida loo delete gareeyo sida labels cusub loogu soo daro oo aynu isla arki doono hadhow. Sidoo kale copy ayaad ka samayn kartaa isla kan. Waxaad kaloo qaban kartaa inaad checkbox si aad ku soo darsatid iyo wixii la mid ah. Marka note-kaaga markaad samaysatid waxa uu kuu soo geli doonaa qaybtan ayuu ku taagnaan doonaa. Halkan ayuu ku ooli doonaa note-kaaga oo markaad marba programka soo gashid halkaas ayaad ugu iman doontaa. Haddaba haddii aynu isla sharaxno qaybahan kala duwan ee uu Google Keep uu ka kooban yahay qaybta bidixda waxaynu isla arki doonaa qaybta ugu horeysa waa notice-ka. Haddaynu tagno notice-ka waxaynu ka arki doonaa hadba wixii inta note ee noo qoran ayaynu halkan ka arki doonaa. Sidoo kale qaybta ay ku qoran tahay reminder ee cheleska uu yaallo waa qaybtii aynu kaga darnay haddeer
marka noodkaaga la xasuusinayo amaba aad dooratid inuu ku xasuusiyo ayuu wuxuu kuu soo geli doonaa qaybtan. oo iminka haddii aynu ku dhufanno waxaynu ugu dul tegi doonaa isla noodkan aynu qornay ayaynu ugu dul tegi doonaa. tusaale ahaan waa inagii hadda reminder ku darnay aynu yidhi waqtigaasna xasuusi, kadib haddii aynu ku dhufanno waxaynu ugu dul tegi doonaa noodkeennii oo uu ku guda jiraa. qaybta kale ee kusii xigtaa waa labelska iyo siyaabaha loo edit gareeyo. tusaale ahaan haddii aad rabtid inaad label cusub aad kusoo darsatid, halkan ayaad kaga dari kartaa. waxaa leedahay label ayaad qori doontaa, add label ayaa leedahay. iminka label ayaa laynoogu daray. si kale waad ugu soo darsan kartaa, waxaad dhigi kartaa 3 dhibcood intaad tagtay ayaa dhigi kartaa add label ama text cusub igu dar. kabacdi waxaa lagugu soo dari doonaa text cusub. marka labelkaagii halkaas wuu isku soo taagi doonaa. sidoo kale haddaad rabtid inaad wax ka bedeshid amaba aad edit garaysid, waxaad tegi doontaa qaybtan edit labels. oo halkan waxaad samayn kartaa inaad ka edit garaysid, amaba haddaynu isha yar aynu ku dhufanno dhiligaraynta ayaynu ka arki doonaa oo labelkii halkaas ayaynu ka saari karnaa. sidoo kale editing ayaynu ku samayn karnaa oo halkaas ayaynu wixii ka khaldan aynu ka bedeli karnaa. marka waxay noogu soo xigi doontaa qaybtan kale ee archive-ta. archive-tu waa inaad qarisid noodkaaga weeyaan, oo inaga haddeer isla arkaynay halka laga qariyo oo waa halkaas. haddii aynu iminka archive niraahno waxaa laynoo gelin doonaa qaybta archive-ta. waatan qaybtan archive-ta ku jirta. tusaale ahaan nood yaro hore ayaa ii qarsoonaa, marka waa sidan oo kale ayaad ugu dari kartaa. weliba qaybtii notiska waa uu ka baxaya oo wuxuu tegi doonaa qaybta archive-ta ayuu tegi doonaa. marka waa uu inoo qarsoonaan doonaa. qaybta kale ee trash waa inaad noodkaaga aad delete garaysid ayuunbaad ka heli kartaa. tusaale ahaan haddii aynu sameyno nood cusub kadib aynu delete garayno oo aynu idhaahno delete, waxa uu tegi doonaa wax la dhaho qaybtaas ayuu tegi doonaa trash. kabacdi noodkeeni halkaas waynu ka soo celin karnaa. waxaan dhihi karnaa restore ayaan dhihi karnaa. sidoo kale waynu kasii delete garayn karnaa oo qaybta isla trashta waa laga sii saari doonaa. waa halka ugu dambeysa ama lastiga ugu dambeeya ee uu noodkaagu kusii macasalaameyn doono weeyaan. intaasi waxa weeyaan waa isticmaalka notiska iyo qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay. sidoo kale waxaa dhici karta inaad qorshe aad wadatid kaas oo ka kooban listi ama waxa la dhaho steps kala duwan ka kooban. markaad rabtid inaad sameysid waxaa leedahay hawsha koowaad ayaa leedahay ama qaybta listingka ayaa tegaysaa, kadib hawshaada ayaad qoraysaa. sidoo kale stepskii ka koobnaa hawshaada ayaad ku dari doontaa. marka waa qaybta listingka ayaad ka samayn doontaa qaybahan kala duwan ee waxa la dhaho inuu hawshaada ka koobnaato steps iyo wixii la mid ah. markaad ku dhufatid qaybihii kala duwanaa oo dhan waad u samayn kartaa aynu hadda soo aragnay. kadib waxaad leedahay close oo waa iska soo xiri doontaa. marka sidan ayuu kugu soo samaysmi doonaa. checkboxyo ayaa lagu sii doonaa. hadduu hawsha aad dhamaysay ama stepka koowaad aad dhamaysay ayaad waxaa leedahay tigta ayaa saari doontaa. kadib waxaa lagu gelin doonaa qaybtan hoose oo waa la qarin doonaa ama waa la highlight garayn doonaa. waxay ka dhigan tahay hawshaas waa dhamaysay. sidoo kale hawsha ku xigta haddii aad dhamaysana si leeg ayaa samayn doontaa. marka waa haddii aad leedahay maxay steps kala duwan ay ka kooban tahay hawsha aad qabanaysid iyo wixii la mid ah. marka waxa uu kuu soo qori doonaa waxaa la dhameeyey intaasoo hawlood ayaad dhamaysay, intaasoo hawlood ayaana ku harsan. marka qaybahana waxaa la dhahaa waa listiga ama waa qaybaha listiga weeyaan. sidoo kale waxaynu soo arki doonaa qaybta binka oo ah inaad noodka ku muhiimsan aad xagga hore aad soo saaratid. marka haddii aynu bin aynu saarno waxaa dib loo geyn doonaa notiskii aan muhiimka ahayn ayaa dib loo dhigi doonaa. sidoo kale ka kalena halkaas ka dhaqaaqi maayo oo waa lagu bin gareeyey. marka intaasi waxa weeyaan waa notiska kala duwan iyo siyaabaha loo edit karayo ama waa loo isticmaalo. waxaan filayaa inaad
casharkan muhiimka ah ayaan ku soo qaadanay maanta Google Keep aad wax badan aad ka faa'iideen. fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay noo subscribe gare, haddii kalena asxaabtaada la wadaag.